بسم الله وما تنتهي فلسطين هذه بعضها سيوة وما عليها موقف كان قبله لهذا قضاء الشيكتي وحنكو حسني استدمنتي ما أنت صوت صارلي وقعدة مذكرتك إيو تدري توجه سبتمبر مذكرتك ما قبله أو سلام سجى فاسوق عادي تدري توجه سبتمبر ما يشيز للجليد أو لا شرعية أو لا بيكره ويشيز ككلية الوشي جي اللي سكوا فصيل هاي وهي سيد تبغى نريه هاي وارمتها عن شكلي إن الغصة اللي قلنا قضاء دلتنا الدور شكو قالوا لوغنا بحا اسم رواقة iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira midda ka soo wareegtay markii kulankii ka socda xalana uu burburay baarlamankuna uu muddo kororsiga ku dhawaaqay maamulka galmudug iyo hirshabeelle dawladdaas ku dhaweydeen maxay idinkugu qaadatay muddadaasi in aad mowqifkiina aad cadoon weysaan oo ilaa xilligan uu soo gaaray markii hore Palestine anigu ereyga burbur ma isticmaalo ما شركوا واستاجي وانا لو سي سعون كري وانا لفقان كري لها مو ماشي مركز وكتشيرو عقبات ان العقبات الحالية ووحشة عادية وظهر الله انا مرد وانا كسود عبحا تم وقتي على الشدى انك موقف قيادة يا رسول هذا وحيا هاي المروربة إن أشتغل جيدنا أشتغل دوينا بدنا نوقف وقتنا وأنا أول شيء أقول تمد أما يكون دلتي تدري تون في سبتمبر مركا وحاول ندلال بدنا معهين برلمانكو إنتوران سماين وذكرين تاعنا موقف كنا هذه الله سعتي وعد بين واشر وأنا مذكر يجيب كريم ذلك أنا وسنقاري كريم واشر لي مدلي كدم بيسان دلال حتى ودني دلال شيء ودني أما خوشي أنت ودني وحكم إذا استلم فيها صوتها رمي ما كلام صوتها فقطع ما نضاهنا سقوط عالية هذا مثلا هاي وهي كلام عالي أما لبنا وأدنى رحمة محاد إسلام هالكم ولا جاء هالكي هالكم جاء هذا هالكم ولا جاء هذا سيدنا شغلي دواء شيء بالجاري شيء كاس يا أو خيري بحال كان لقى هذه كرا سبب واحد كان لوجا فكره أما سكله اللي يلا حقيقة هذا يعني ما مو قطع ما بتشيل كرتو مركو حال كان ماشي لين هذه هو دراسة لوجو كرا الشيء كي تدري تون في سبتمبر لا هي جاء كرا أوفرن أو شيء أو دراسة لوجو كرا هي ما سبب كين كان ما تشيلته جيت كرا أو حتى تحت هاي اللي هذا ما تشيله واضح إن مدن مدحين واحد جبت إن المهم دلالنا بدأت أتكود المجالات المقدسة ومالمي وجود بيع القلقلتين والدجال كالسعودين سداء وأردت الدجال كافي محاس حلقة أوقات كجار. كنت دجال كأي القلقلتين كي مجالات التحضير هذه ما نروح النهاي مدي الصوماليات تذكر الصوماليات أكو جارين أو جات كسر جارين أو وتعسيرنا تكون دوتنا الله ونحرسه تكون دوا عندنا الله حاتيه waxaan soo xayay mas'adaro taas ay halkii iyo dadaalkii aan wadnayna mar walba waxay ahayd waajib la saaran yahay ugu dambeynna waxaan isleenahay hadda dhibaatadii sababtii keentay dhibka halkeeda in la aado ayaa halka qaybka ah oo halka ugu saxsan ah waana mid aan qabno cadeymay oo sayniskiina ku cadeymay in looga baxo ismariwaaga siyaasadeed ee dalka jira doorashadii lagu heshiiyey in la galo aan sheegnay weeye wixii kale oo hadda doorasho aan waafaqsanayn ama doorasho aan la ahayn oo dhowr kale oo dad ma jiri karana weli diyaar baan u nahay inaan gacan ka geysano rajigii qabta anna waxaan rajeynaynaa laakiin in dhibku halka ku istaago wixii dhacayna sidaas ay nasiibdaran ahaayeen lagu wada qanacsan yahay wadada Soomaalina isaga looga samata bixiyo caqabada soo wajahday oo ku timid arrimihii doorashooyinka iyo dib u dhaca iyo muranka maanta
gelinkii dambe dawladdu ciidamay ka soo qaaday galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareed oo qaarkood ay aagaga ama furmaha hore ay ku jireen sida uu sheegay wasiirka amniga oo goordhow aan la hadalnay sidee u aragtaa ciidamadaasi mase lagugu wargeliyey in laga soo qaadayay dhuusamareed ciidamada wax kasta oo tallaab kastoo la qaaday oo la socotay shaqaaqooyinkii ama dhibaatadii ka dhaxaysay magaalada muqdisho waxaan rabnaa inay halkaa ku istaagto marna anagu dadka eedaha iyo waxyaabaha wax isku dhibaatada sii sheegisteeda iyo ma ihi marka waxaan rabnaa dhib oo dhan inuu istaago laga istaago laga joogsado wadada saxda ah iyo maslaxada Soomaaliyeed iyo danta ummadana la aado meesha ku jirto dhammaan waxay gacanta lagu hayay ama laga fakarayay oo aan dan ahayn laga waantoobo madaxweynaha waxaa la filayaa daqiiqada kadib xilligan inuu hadlo wararka qaar waxay leeyihiin waxaa dhici karta madaxweynuhu inuu go'aankaasi ayido ma isku raacsaneedeen oo heshiis ma ku ahaydeen in madaxweynuhu uu go'aankiina idinku soo raaco ka hor inta aadan soo saarin qoraalka madaxweynaha waa madaxweynihii aragtidiisuu leeyahay mas-uuliyadiisuu leeyahay waana wuxuu dhigi doono iyo wuxuu ka hadli doono aniga ma ahan waa hawl aanan ogahay maahan inaan ogaadana wax oo loo baahan yahay ma ahan marka annaga mowqifkii aan qabnay aragtidii siday wax nala ahaayeen baan sheegnay madaxweynaha tiisa dhigi doonaa insha allah waa mahadsantahay madaxweyne